شفاء لروحي وحبل المتين bulshoy waxaa la idinku bishaaraynayaa xarunta الهلال cudurrada laga daaweynayo waxaa ka mid ah dhiig furanka waalida caado wareerka umusibyaanka gabdhaha wejiga ka halaabay baabasiirka dhagaxa kiliyaha gala xoojinta raganimada isha dhiig karka sokorta naxdinta kili xanuunka waswaas. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات إن شاء الله كسو دوادا كتابكي آنو بلابين كساب سنة داوينك يعذر رضا قود كتاب كاسي وحا ليرادا الطب البديل أيا ليرادا وكتاب صاع عميمي عذر رضا أردن كهاليا يسيد اللو داويو عيو انت بدن كهاليا aanu bilowna marka darsigeena ugu horeeyo haduu Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka raad lahaado qala ibn al-qayyim rahimahullah ibn al-qayyim wuxuu yiri al-amrad naw'an cudurradu waa laba nooc marad ku dhaco qalbiga iyo marad al-abdan cudur ku dhaco jirka qofka bini aadamka ah wahuma madhkurani fil qur'an labaduba waxaa lagu sheegay quraanka ayaa labaduba lagu sheegay marad alqulub naw'an waxaa la sii kala qaybiyay xanuunka ku dhaco qalbiyada qofka bini aadamka ah wuxuuna yiri waa maradu shubha wa shak iyo wa maradu shahwa wa kilahuma fil qur'an cudurka ku dhaco qalbiga ee shakiga iyo waswaaska xaq in laga shakiyo ah qala ta'ala fi marad al-shubha fi qulubihim marad fazadahum Allah marada Ilaahi subhanahu wa ta'ala asagoo tilmaamayo qalbiga cudurka ku dhaco ee shubhada ah iyo shakiga wuxuu yiri fi qulubihim qulubtooda waxa ahaatay maradun jiro cudur baa ahaaday فزادهم الله مرضا مرض كنا إلهي بقى زيادة قفك waxa weeyaan hadii diinta islaamka uu san rumaysneen ama shaki uu ka qabo qalbigiisa waxa ku jiro cudur jira ayaa ku jirto subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay mar kale waqala ta'ala وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا waxay yiraahdaan waliyaqula si ay u yiraahdaan alladina kuwi fi qulubihim qulubtoodu maradun jira ay ahaatay iyo wal kaafiruuna gaaladi maada arada Allah bihada mathala mithaal kan yamicnaan muxuu Ilaahay kala jeedaa diintii iyo xaqii ayay ka shakisan yihiin marka waa lagu xujeynayaa oo waxa leeyahay waliyaqula alladina fi qulubihim marad مثال كان إن لا يابان كتابك قرآنك مثالذا وكاني أي لا يابين هنا كشك سين شك بيقبل مركب حال يريق قلبك وجرين كوا أيجا كلا حنونك كود قلبك قفك بين آدم كأو حاكم ذا مرض شهوة عذرك كود مرض الشهوة وحويان وقفك إنه جعل هذا مر والباء شهودي سأي هجاميسو قفك شهودي سأي ay hogaaminayso ayaa waxa la yiri marad shahwa ay zinada iyo waxyaalaha noocaas oo kala u degdego oo jecel ayaa waxa la yiri qalbigiisa asaguna waa jiran yahay markuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala haweenka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam uu la hadlayay oo yiri ya nisaa an-nabiy lastunna ka ahad min an-nisaa in ittaqaytunna wuxuu yiri fala takhda'na bil qawl hadalka aad ha u dhicifina jilcinina يعني هذا وقلنا قولا معروفا لكن وحويان فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا فيطمع الذي في قلبه مرض مركز او idin damco midka qalbigiisa cudurka uu ku jiro jirada ay ku jirto iska ilaaliya leeyahay marka hadalka aad ha u maaragtay ha u jilcinina haweenka oo dhan arintaasi waa ay faranta hadalka wanaagsan waa شيء معروف وقلنا قولا معروفا هدون نكل هذا هذا الوناكسن هذون عاين هذون كحد قد بين هذا الوناكسن وعطيه كرتا مرض الأبدان مركة إلهي سبحانه وتعالى وحكو شيء آيات القرآن كاس في سورة النور
laysa cala alacmaa xaraj qofka indhoolaha wax dhiba ilaahay duma dul saarin yacni xagga axkaamtii diinta islaamka qaybo badan ayaa laga khafiifiyey مثلا جهادكي وكلا قف دولار من كقيب قال كرو ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج قفك جيسك وحده شيء سماء هانين قفك جيران أو جيران الله جيفه دوشي سوحه ما هانين مركب وحويان ولا على المريض حرج شويان قصدكم مريضك جيران الغش دينتين وطا هل كان وحنا كجلينا مركب وللبدن ثلاثة أحوال حالة قفك جرك بني آدم كا وحي مرتا سد حالة أي مرتا حالة طبيعية حالة اسك طبيعية أو اسك عادية وقفك وسن دريمين وحنونة وحال خارجة من الطبيعة هي حالة كبحسن عسيد عادية كبحسن أو حنون وإيمانية هي وحال متوسطة حالات كلو اسك عادي ودحدحاده بين الامرين قفكي من حنونسنو من فيو بحاله دحدحاده ايو اسك جيرا والثانيه بها يكون مرضا فالاولى مده هريسو بها يكون البدن صحيحا مده هريسو قفك جيركيسا waxa weeyaan waa jir iska caafimaad qabo والثانيه مده labaadna بها يكون مريضا qofka waxa weeyaan wuxuu ahaanayaa qof jiran oo xanuunsan والثالثة مدة سدحادنا هي متوسطة بين الحالتين waxay u dhaxaysaa xaaladda caafimaadka iyo xaaladda cudurka ayay u dhaxaysaa saddexdaas qaybood ayaa waxa weeyaan qofka bini aadamka ah jirkiisa ku timaada isbedelka noocaas ayaa ku yimaada وسبب خروج البدن عن الطبيعة sababaha keena qofka in jirkiisa uu ka baxo sidii caadiga ahayd oo uu xanuunsado sababaha keena waxa weeyaan imma min daaqilihi wa imma min kharijihi qofka in xaalad gudaha ay ku timaado jirkiisa gudihiisa uu xanuun ka yimaado waxyaalo badan oo keena marka qayb daaqili ah oo xanuunka keenaysa oo jirkiisa qofka inuu jirado unugyada jirka gudaha inay jiradaan waa ima min kharijihi ama uu xanuunsado oo qofka jirkiisa kore xanuun ka yimaado marka waxa ku daraynaa wuxuu yiri sheekha wa amma tibbul badan xanuunka qofka jirka ku imaada fa inna wadana noocaan laba nooc ay ku imaadaan xanuunka qofka jirka bini aadamka ku dhaco nooc waxa keena gaajada oonka iyo daalka ayaa keena xanuun waxa keena qofka hadii uu baahdo oo cunto ku filan uusan helin waxa ku dhacay wax loo yaqaan malnutrition dhanka kale oo cuntadii jirkiisa kuma filna waa baahan yahay gaajo aan caadi ahayn buu qabaa marka waxa jiranaya unugyada jirkiisa oo dhan ayaa jira ku imaanaysa oonka sidoo kale biyo la'aanta wuxuu sheekhu waxa ku imaanaya qofka in jirkiisa uu qalalo kadibna cudurro ay ku dhashaan sidoo kale daalka farada badan wuxuu keenaa asaguna qofka inuusan cunto badan qaadanin oo cuntadii ku xanuunsado malnutrition laftiisa inay ku dhacdo sida mesela qofka hadii uu shaqadiisu ay u badan tahay ama uu yahay qof mas'uul ah ama madaxweynaha sidoo kale dadka mas'uuliyiinta siyaasadda ku tartama inta badan cudurrada noocaas oo kale ayaa ku dhaca maxaa yeelay maskaxdooda aad bay u shaqeynaysaa way daalan yihiin 24 saac bay shaqeynayaan qof kasta oo shaqooyinka noocaas oo kale qabto ayaa asagana waxa u fudud yahay in cudurradaas ay ku dhacaan marka nooca kale oo cudurrada keena waxa weeyaan cudurrada kale ayagana isshaabaha ee ayaguna soo degdega oo qofka hal mar ku soo booda qofka soo iskaga fiican yahay waxa ku soo boodaya cudur dhiikar ba ku soo boodaya sonkor ba ku soo boodaysa TB ba ku dhacaysa yaani xanuunada soo booda oo kale ayaguna qofka jirkiisa waa ay saameeyaan si degdega ay ku dhacaan ayagoo wax sabab markaas keentay aysan jirin fayrasyada adduunka maanta yaacaya ayaa kamid ah marka cudurradaas labadaas nooc ay cudurrada qofka bini aadamka ku dhaco ayay u qaybsamaan buu leeyahay sheekha
aad baad u mahadsantihiin wabillahi tawfiiq. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.